السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. كسو دوادا قصدينا مانتا. fariin ku socota wiil walba oo damiir laawe ah. wiil iyo gabar baa haasaabo dhex maray. wiilkii gabadha wuxuu u sheegay inuu aad u jecel yahay uuna doonayo inuu la kulmo xaafadda sana ay ugu timaado. gabadha arrintaas way ka diiday, hase ahaatee hadallo macaan iyo beerlaxawsi badan kadib gabadhii way ka ogolaatay. wuxuuna u sheegay birita saacada markay tahay 12 galabnimo in ay u imaado xaafadiisa. waqtigaasna qof aysan guriga joogin. sidaas ayay ku balameen. wiilka wuxuu balansaday saaxiibadiis xaafadana ayay ugu yimaadeen si gabadha imaan doonto ay u wada xumeeyaan. kadib wiilkii hooyadiis ayaa soo wacday, kama qabanin. dhowr jeer ayay ku soo celcelisay. markii dambe ayuu ka qabtay, waxayna ku tiri aabaha ayaa tacbaan ah, isbitaalka ayaana joognaa, qalliin degdeg ah ayaa la gelin rabaa ee adiga ku aaway. wiilkii wuu isku naxay, saaxiibadiisna ayuu u sheegay arrinta ku soo siyaaday. wuxuuna ku yidhi gabadha way soo dhowdahay, xilligiina waa la joogaa, aniga waa sii baxaa, isbitaalka ayaan sii aadayaa. hadday timaado gabadha sidaad doontaan ka yeela. wuu soo cararay asigoo gaariga u wadaaya sidii wax waalan oo kale, kana walwalsan aabihiisa isbitaalka yaala. ugu dambeyntii isbitaalka ayuu soo gaaray. hooyadiis ayaa ku tiri aaway walaasha. wuxuu ku yidhi ma arkin. hooyadii waxay ku tiri adiga ayaan kuu soo diray markii aad taleefanka naga qaban weyday. xaafadda ayay aaday. wiilkii wuu isku naxay, talaa ku dhammaatay. mar kale ayuu soo cararay sidii wax waalan oo kale. xaafadda markuu yimid waaba tan walaashiisa dhulka jiifta ayadoo qaawan. saaxiibadiisna ay waxay doonaan ku sameeyeen, iskagana tageen maxaa yeelay asigaa u balamiyey gabar ay sugayeen. wayna u imaaday dulucda sheekada. nin walbow ka hor inta aadan xumaan la damcin gabar kale, ka fakartan kula dhalatay hooyada, gabadhaada iyo xaaskaaga. hana u quurin wax aadan u quurin walaashaada, hooyada iyo xaaskaaga. ha xumaynin dumarka weligaa. fadlan la wadaag asxaabtaada. laga yaabay in dhalinyaro badan ay muuqaalkan anfacdo. mahadsanidin.